أي طبعاً سنة يسوى حنوصل وأنشوفن طبعاً كاسر عيد عنيي شخص كليه وح أولي كرم وح أوبا هيا بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ميل كستا جوجتان waxaan joognaa maanta magaalada Kulub oo ganacsi u jirto 10 kilomitir waa magaalo dabcan asaas hore uga warhayseen ama intiina aan ka warhayn ay dad yar ku nool yihiin isla markaasna uu bacaad xawaalay adeeg walbana uu ku yeelyahay. maanta waxaan kula kulannay aniga Abwaan Geesi iyo rag badan oo meeshan akhyaaro yimid inkan magacay mid fadhiya ama noo dhaxeeya aniga Abwaan Geesi oo lagu magacaabo Cabdirasaaq Jaamac Diirshe ilkamaraqna ku magac dheer magaalada ay ku nool yahay waa nin xanuunsan saad arkaysaan haddaba asaga aad ka arkaysaan waxa looga jiraa madaxa waa nin madaxa ka jiran muddo 10 sano xanuunsan bacaadkaas iska galgalanaya waxa uu rabo ku hadlayaa jira waxa haysta kulay ilaahay uusan dadka islaamka ku ridin oo dabcan madaxna waa qofka meesha uu ka shaqeynayo waxa ninkan xanuunka haya xanuun ma ahan ma iska sahlan ma aha wuxuu u baahan yahay dhakhtar wuxuu u baahan yahay gacan qabasho ilaahay wuu awoodi karaa inuu caafimaad degdeg ah siiyo laakiin waxa uu mar walba ilaahay ku fiirinayaa inta iyada caafimaad ka qabto waxa aan ka sameeyno haddii aan ku fiirsano bacaadkaas haddaan ku fiirsano xanuunka uu qabo ilaahay ma awoodi waayeen kaayagan qaar buu wuxuu siiyey lacag badan kuwa caafimaad siiyey intaa marka waxaa la fiirinayaa sida ugu gurmano ninkaas maadaama ninkan uu yahay nin dhab u xanuunsan maskaxdiisa isu joog wuxuu rabo ku hadlaya iska soconaya waxba aan cunaynin waxaan cabaynin ciidaas u dhex galgalanayaa waa iska hadaaqayaa marka wuxuu u baahan yahay wax yar oo fudud anaguna aan awoodi karno waa inaynu duco ku gacan garno isla markaas aynu dhaqaale ku darno awaana soo dhawow balkanada waa maasantahay Farxaan Faarax runtii waan kaga mahad celinayaa shaqada wanaagsan ee samafalka aad haysin bulshadana u haysin ilaahay ku xiftiyo walaal macaan walaalkeen xanuunsan Cabdirasaaq Jaamac Diirshe ilaahay ka caafiyo kamaro waxa weeye runtii sida uu Farxaan idin sheegay wuxuu u baahan yahay maanta ilka muruqin kaga baahan yahay garab idin kaga baahan yahay adduunkan walaal ku nahay haduu la ku roon yahay aakhiro qof walba camalkiisu la tagi doona adduunka wayna isku kaalmeena wax istaqnaa iska farxinaa murugta iska qaadnaa waxa weeye qof walba qofku uu tari karo ninkaas maanta markaa fiirisin hadaladiisa markaa arkaysin oo aad sidoo u hadlay waxa isleedahay wax yar buu u baahan yahay isleedahay wuxuu u baahan yahay dhakhtar in la geeyo oo maskaxdiisa haduu la kuro la saaro haduu la kuro raajo la saaro oo haduu la kuro iskaan la mariyo wuxuu u baahan yahay shifo in la geeyo wuxuu u baahan yahay in la xanaaneeyo u baahan yahay waxa suurtooda ninkaas maanta inuu sida anaga Farxaan iyo aniga iyo inta nala socota dhalinyarada nala socota iscinadaaro kaamirada noo hayaba sida anaga u caafimaad qabno dadka u caawinano inuu isaguna bari ka maalin u caawiyo tay 10 sano isagoo xanuunsan oo aan joogin 10 sano ciid cunayay oo haduu la kuro yahay cagacad oo sida haduu la kuro wuxuu ku hadlayay wax kale aan ogeyn waxa weeye maanta marka haduu la kuuraya waxaan ka codsanaynaa dhammaan haduu la kuuro dadka Farxaan ku xiran iyo dadka aniga ku xiran igu xiranba waxaan idin ka codsanayaa walaalayaal qofkii aan wax tari karin fiidiyowgiisa qofka uu isleeyahay waxbuu tari karaa inuu ugu sii sheer gareeyo oo yiraahdo qofkaas waxa ku caawin karto ku caawi eheladii asxaabtii dadkii haduu la kuuro ilka maro qaranayo oo dhan Cabdirasaaq haduu la kuuro dadka garanaya waxaan idin ka codsanaynaa ninka haduu la kuuro inaa soo garab istaagtaan oo wuxuu joogaa haduu la kuuro deegaanka Garaacad sida Farxaan idin sheegay waxa weeye lambar ninkaas maanta ma lahan haduu la kuuro meesha ugu soo qornay laakiin dadka ehelada iyo odayaasha meesha joogaan weydiin doona qofka ugu dhow waan isnaan qofkaas waa mas'uulkiisa waa qofka laga soo wiilkiisa jooga Soomaaliya baan haduu ku soo qori doonaa lambaradena meesha kuma soo qori doonee si gaar ah qofkii raba inuu haduu kula soo xiriiro Farxaan oo la soo xiriiri karaa oo haduu ku roon yahay Farxaan lambaradiisa waa haysaan haduu ku roon page-ka ka soo heli kartaan sidoo kale aniga page-ka iga heli kartaan waxa weeye ninkaas maanta garab idin kaga baahan yahay Farxaan maxaa leedahay marka waxaan rabnaa intaas inaan ku soo gabagabayno kaliya waxaan u baahannahay inaynu maanta garab istaagno Cabdirasaaq sida Abwaan Geesi idin sheegay maanta gurma naga rabaa maanta hadduu dhinto waxba uma baahna ilaahay buu agtegi doonaa laakiin inta uu maanta adduunyada joogo inuu garab istaagno annagu waxaan haysanaa xadiiska nabiga sallallahu alayhi wasallam dhahayay kan aan hadli karin hadalkiisa ummadda iga gaarsiiya kan aan warkiisu soo gaari karin isoo gaarsiiyo oran jiray nabiga sallallahu alayhi wasallam kaasaan haynaa waxaan idin soo gaarsiino maanta idin kaga marxaati dhigayna ilaahay hortiisa inaan ninka xanuunkiisa iyo dhibta idin soo gaarsiinin inaad ka falcelisaan idinkaas kale inaad maaragtay garab istaagtaan idinkaas kale caafimaadka ilaahay haya laakiin garab istaaga inaad garab istaagtaan baa muhiim ah
sida abwaan geesina idiin sheegay lambarada aan idiin soo qori doonaa waa dadka lagala xiriiri doono ehelkiisa ay ugu dhow maadaama uu yahay ninkaan xanuunsan oo aan la heli karin isaga aad baa u mahadsantihiin aad iyo aad mid baa ku darsanaya intaada facaano ka bixin waxaan ku darsanayaa sadaqadu badnaan iyo yaraan ma lahan qof walba wuxuu awoodo haddii ugu soo diro wax badan ayay u qaban kartaa inteena ilaahay wax siiyeyna haddii hal qof baa ninkaa wax u qaban kara maanta hadda anagoo dhanna waa u gurman karnaa oo qof walba waxba u diri karaa laakiin qof naga mida oo ilaahay wax siiyey baa intuu garab siiyo oo dhakhtar geeyo oo shifo geeyo baa ilaahay isagana adduun iyo aakhira ku liimaani karaa waxa weeye sidaa idiin sheegay weeye farxaan ninka waa idiin soo gudbinay idinkaana idiin soo bandhignay waxa weeye dee waxaan kusoo xiraynaa maanta maalin ay ka farxad badan tahay baan idiin soo gudbin doonaa haddii aad caawisaan waxaan idiin soo gudbin doonaa arki doontaan haddii ilaahay yidhaahdo isagoo caafimaad qaba idiin mahad celinaya laakiin soo abwaanku idiin sheegay shaksi keliya wuxuu awoodi karo weye waxa uu u baahan yahay annaguna aan isku dayno inaan markaas u maceyno asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu